بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ساكا رجع يجنا يسوقين يراي زيرك يحلباننا ذا يقدم يكحجانك. وحنا ربنا إنه كل ماذا كان نحنو رنتي حال عضي سيدا أكسنتهين معمول قبلات كبتلان إذا ما كترسني إن حالته هي مركي قبل كحيسمة ما ملكيسي أردن إن يقسمين تدقيو قرشيسن والله قلت لقري إن دتك لقول لايو لقونا خارجيو إذا أودت كاسي مدحضا قبل كحيسمة أي مريين ديجان كودي دل كودي تروين كودي وددودي يا ماشي يكون الشيء iyagoo u socday arrimo nabadgeliyo iyagoo u socday arrimo humanitarian oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya waxa wadada si qorshaysan loogu galay in lagu kharajiyo nimanka madaxda qaar kamida waxa si xilkasnimada iyo milgaha لآذن كبحسن لوجود دلي قابت أقول شيء سن سقوا أن واحد به ودين واحد بروبلم ودين عد هو يصنعين وأسعد ريمنا بتقولي ريمو بالآذن ريمو ودتك وشقيني وحال لوجود دلي وفلكا كنا فواي كل شهيدي سليمان عبدي عاطي وأهات ليه ciidanka kamida ururada guutooyinka degan la saanood kaashan leh Salebaan Cabdi Caat oo taleex degan sarkaal sare oo ka tirsan oo kamid ah saraakiisha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyay meeyarkii magaalada taleex ee gobolka Xaysimo oo dhaawac aad u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacmaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU gaaradu waxay ku tilmaantay intensive care unit ku jira waxa xabad la daba raqabsaday oo la bacsanayay muddo ku dhow 30 kiiloomitir كفرتوري مقالده ويسقون اللسود يقول كحيسمو يسقون إلهي أمركي إله بأود له وكبد بعد وعاد هر له وأي بطلان كسر ركتي ديجا ماذا أول بعيدا بيصير فدي لكن إن ودوينك لسك أوجار صدا وما لحظة رجع وقوم الجهة سرية سيدا اللوجة بورو يقول ديجان كودي مري وأنه أغنى رجع ديجان كافرديا ماشي أي كسر شيدان وحيدا بطلان ليله هذا ما تشري وقبيله يقويسس مدبا مالغا كاني وهي عن شلا يعني عيدا كالسومالي لاني معها قويس كميش الدقن يرجع لايينا سفي عن بان أغنى أو أقرانينا حوي وأنا أرين أي كذلك أوغان دونان جوابتي إن أنتي ديجان كيجي يقول كيجي نلو كوي ما دو رجع يجي هذا نستى الله حسوقه أو كي هو طلع حسوقه يكون سمايان مثل وما أنت مدحدي أي سمايان سبحان الله يقوم ماذا لهلا وابحكت كي هو يكون بدقراني حسوقي طلع رجي سمي أو سو تاجم ولي تيفي هذا إيا لامي هذا يدو رجي يجي إيا هنتذا يدي إيا هوبكي أي فرتين أي مقين نحرست هذا اللوج يسنيو لوج قرشين أيو الرجع متعلمين تا نينجربوت كا ومدة عنده دي أهيد إن سيدا الله حسوقه وحي كتوسا يسا إن هير كلا جارسي سيهي عداوده يديجان
halka laga gaarsiiyey ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dulqaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad goob kasta iyo meel kasta ilaahayna waxaan uga baryayaa marxuumkii dhintay gaashaan sarkaalka sare ahaana in ilaahay cawil khayr qaba ugu bedelo aad iyo aad baanu noogu tiiraysannahay tacsi baanu nooga diraynaa qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo caa'iladiisii iyo reerkiisiiba qarankuna wuu ogaanayaa waa nin u shahiiday difaaca qarannimada Soomaaliland annaguna waanu xusuusnaan doonaa qarankuna waa u xusuusnaan doonaa maayarkana insha allahu ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka kiciyo wixii gacan dawladeed loo geysan karana diyaar baanu nahay inaan u geysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu malaynayaa munaasabadda wasiirka inoo sheegay dee sababta loo qabtay waa sababta fitanka ah ee haddeer ay ugu horeyso in dhabooyinka magiidada loo galo marka koowaad waxaan tacsi u diranaa dadkii uu ka gooloobay ninkaa sarkaalka ah ee dhabbada loo galay ee maatada iyo carruurta waday xanuunsanaysa ee aan hubaysnayn ee magaaladiisii tegay ee magaaladiisii ku soo socday ee dhabbada loo galay waxaanu leenahay dadkii uu ka dhintayna aad ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo waa dhacdo xun waa dhacdo uguba waa dhacdo dee ciidamo iyo hab maamul iyo waxbaa lasu loo reeyay in dad odayaaloo meel maraya dhabbada loo galo oo weliba qabiil ciidan haysta ay u galaan qabiil meel fadhiya oo ciidan haystaa ay u galaan puntland in dhabbooyinka lasu galo cid uga nuguli ma jirto deegaankayagu iyo xuduudayadu ilaa boosaaso ilaa garoowe oodaanu ku hayna xagga hawdkana ilaa gaalkacayo ilaa garoowe oodaanu ku hayna cid uga nuguli ma jirto horta sunnaad abuurteene meel u samaysta sunnaha xuna aad abuurteen waxaan leenahay puntlanday meel u samaysta dadka deegaankana ogaada waad ogeydeen laascaanood gudaheeda baa puntland ina muqriyo usoo dhiibaysay oo habeenkii dadka la miriyey waa aya dadka la mirayaa dadka la mirayaa waa dadkii dhulka lahaa waa dadkii deegaanka lahaa sidaa kuwaa loo laynayo baa laascaanoodna la rabay in isteeshinada iyo xaafadaha iyo dhakhtarada dad lagu laayo waa fulaynimo ciidamada is hor joogay hab maamul baa loo kala waxaysanayay in maata la laayo oo marna magaalada lagu laayo marna lagu laayo dhabbooyinka lagu laayo waa fulaynimo iyo liidnimo iyo itaal darro puntland ay soo kordhisay sidaa wasiirku sheegay cawaaqibkeeda dawlad ahaanna way ka helayaan dadkii dadka uu ka dhashay ee deegaankana way ka helayaan insha allah waxaanu leenahay raggiina garowe joogow nin walba in adeerkaaba la dilayaa biqayri sabab nin walba in adeerkaa oo wax uu galabsaday aanu jirin gaariga hore waxaa lagu waday nin oday lagu waday xanuunsanaya oo lagaga soo qaaday taleex waa lagaga soo qaaday baa lagu waday waxaan leenahay maamulka Soomaalilandna fitanka dee ha loo diyaar garoobo waxay tahay in dhabbooyinka la galo baa la keenay ha loo diyaar garoobo puntlandna nabad baa laga wada hadlayay odayaal baa wada hadlayay dunidaa wada hadlaysay arrinta waa la dejinayay belaad bilowdeen ha cararin oo sideen meydkiina uga carari jirteen uga cararin meydkiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warta sida waxaan la qabaa wasiirka iyo xildhibaanka iga horeeyay samir iyo iimaan qof saacadiisa dhaafaya ma jiro kaliya waxaan xoojinayaa sida labada wasiirka iyo xildhibaanka iga horeeyay baa yiraahdeen nimanka dhul badan baanu qoys ahaan raggan ay laayeen iyo kuwa ay cagaaran ku laayeenba aanu xuduud leenahay horta nin nooloo nin dhintay oo aan loo aarin wuu jiraa laakiin nin nool waxaa nool maanta ciidankiisii oo ka badan 40 gaari oo technical haysta taliyaha puntland waxaa leeyahay waxaa ku bishaaraysataan
qarna iyo boosaaso inta u dhaxaysa ilaa boosaaso ilaa garoowe ilaa gaalkacayo goriilaha bilowdeen goriilihiisa hadhow yaa idinla xumaan ciidamaad dagaalamayey si goba bay u dagaalamayeen reer miyi baan dagaalka ku jirin iyagu reeray soo ururiyeen reerkii waxaa sameeyeyna waanu garanaynaa waananu helaynaa yay la xumaanin aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad uga xunnahay wixii aanu anagu ka xishoonaynay inay nagu kalifaan iyagoo ku xaragoonaya waanu ka xunnahay waxay iyagu samaynayaan ee anagu ka xishoonayno inay ku xaragoodaan degdeg bay jawaab degdegay naga helayaan mid dawladeed iyo mid deegaanba dadkaasi dad abaaraysan bay u socdeen dad xanuunsanaya ayay sideen qoryamay sidan guryahoodii bay marayeen sidaa wasiirku iyo xildhibaanku sheegeen dee waxaan leeyahay soo dhawaada waxa aad bilowdeen ha ka cabanina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu